السلام عليكم. قصة عجيبة وقلبي تاوانيسا. أبا هارون وحول مدنكر عليها الجبر ولحي تمنجرة هذا يجعلها جبريسا حاسكيس وحي جريوتي جبريسا وهرسن جرة إسيا جبريسا خوي أبوها منوسن جورسن حاسكالي أسمع وحي لقيتا سكول دوكسيجي سري وحياتو دبستي آبهت ودقوله maadaama markay ardayda isqabtaan waxay ku cayaan dhagoolnimada aabaheed. maalin ayay guriga ku soo labatay iyadoo aad u caraysan. aabe Haaruun waxa uu diyaariyey qado. markii uu keenay qadada way diiday inay qadayso. Haaruun isagoo isleh talo gabadhi miyay xanuunsan tahay waxa uu taabtay madaxeeda isagoo dhahaya madaxa miyaa ku xanuunaya, laakiin ma uusan hadlin, kaliya ishaare ayuu bixiyey sababtoo ah Aaba Haaruun waa dhagool. Asmaa aad ayay u qaylisay waxayna ku tiri aabaheed eray aan u qalmin markaasi oo ay ka mid yihiin odayahow dhagoolka ah maxaa aabbayga kaa dhigay, adig ayaa nolosha igu cidhiiriyey, mar waliba dadka lama kaftami karo adiga daraaddaada. oday Haaruun ma uusan fahmin hadalka gabadhiisa balse waxuu dareemay inay isaga haysato oo ay u caraysan tahay. wuxuuna isku dayey inuu gabadhiisa dejiyo balse nasiib daro ma aysan ka yeelin. waxayna orod ugu baxday guriga iyadoo ordaysa ay laamiga gashay iyadoona dhinacyada iska eegin. waxaana si xun ugu dhacay gaari xooli ku socday. kadib isbitaalka ayaa loola cararay waxayna gashay xaalad kooma ah. aabe Haaruun oo aad ugu nahay shilka gabadhiisa wuxuuna u tegay dhakhtarkii wuxuuna u sheegay isagoo isticmaalaya luuqadda dhagoolada ee ishaarada ah inuu aad u jecel yahay gabadhiisa uuna doonayo in xaaladdeeda caafimaad lagu dadaalo. dhakhtarkii ayaa yidhi gabadhaada xilligani hadda la joogo dhiig ayay u baahan tahay waayo aad ayay u dhiig baxday. Haaruun oo ay gabadha isku dhiig ahaayeen ayaa yidhi aniga dhiigga laga shubo. intaan dhiigga laga shubin ayaa la baaray waxaana loo sheegay inay isaga laftiisa dhiig la'aan hayso oo aan dhiig laga shubi karin, haddii laga shubana uu khatar geli karo. wuxuuna ku adkaystay in dhiigga laga shubo. sidii ayay sameeyeen dhakhaatiirtii. aabe Haaruun xoogaa kadib waa uu geeriyooday dhiigga faraha badan laga shubay dartiisa. asmaa markii ay soo naxday oo xaaladdeeda runaatay waxaa loo sheegay in aabbaheedu geeriyooday, qofkii dhiigga lagu shubayna uu yahay aabbaheeda. iyadoo aad u murugaysan ayay shallaysay inuu aabbaheeda geeriyooday iyadoona ka raaligelin qaladkii ay ka gashay. muhiimadda qisada ayaa waxay tahay inta uu waalidkaaga nool yahay ka ducayso, markuu geeriyoodana shalayto waxba kuu tari mayse. waxaynu soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. haddii aad ka heshay muuqaalkani like saar siina gaarsii saaxiibadaada ilaa 2 qof. intaynu ku kulmi doono kanii muuqaalkiis xiga fii amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.